السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو علي عامر حسن مركل أي مقال عصب maanta haddii ilaahay yiraahdo waxaan ka hadli doonaa qaladaad ka dhaco cilmiga caafimaadka gaar ahaan qaybta shaybaarka. Sidaan ognahay in badan oo shaybaarada Soomaaliya ka mid ah weliba institutionada gaarka loo leeyahay waxaa ka dhaco qaladaad fara badan. Waxaan jeclahay inaan baraarujiyo qaladaad anigoo aan qof gooni ah dhaliileynin insha Allahu tacaala. Intaa kadib marka hore waxaan kaa codsanayaa haddii aad na daawanayso Facebook naga daawanayso inaad share iyo follow ina soo dhahdo. Haddii aad YouTube naga daawanaysana waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto muuqaaladana meel dheer aad gaarsiiso. Soo dhawaada mar kale. Sidaan wada ognahay caafimaadka Soomaaliya korinsho ayaa ku socda waqtiyadii dambe. Dabcan wixii ka dambeeyay xilligii burburkii kadib Soomaaliya caafimaadkeeda marba marka ka dambeyso meel ayuu soo gaarayay waana ilaahay mahadiis. Intaa kadib waxaa bilowday ama la furay magaalada xilliyadii dambe wixii 2010 ka dambeeyay isbitaallo waaweyn oo aad loo qalabeeyay kuwaasoo ay dad ganacsataa leeyihiin kuwaasoo yacni meelaha aan loo hoos imaanin dowlad iyo nidaam dowladeed. Isbitaalladaasna sida caadiga aan ka warqabno waxaa shaqaalaha loo qaataa si private ah oo qof walba qofkuu doono ayuu iska keensadaa ama maamulka isbitaalka keensado ama qof xoogaa inta shaqo soo codsaday si fudud shaqo lagu siiyey. Boqolkiiba 90 isbitaallada Soomaaliya ka furan laguma fiiriyo aqoon shaqo la iskuma siiyo oo qofka looma fiiriyo aqoontiisa oo lama tixgeliyo qofka aqoontiisa. Waxaa loo fiiriyaa hebelaa keenay hebelaa maxaa la dhahaa is yaqaanaan ama in qof caadi ah oo sheerkii ka mid ah isbitaallada magaalada ama qof isbitaalka milkiilaysa xataa in uu qof iska keensado oo yiraahdo qofkan halay shaqaaleysiiyo. Taasna wax iska common ah qof walba ogyahay. Halkan maahan wax aan uga hadlayna laakiin waa wax hordhac aan usoo qaadanayo meelaha qaladaadka ay ka yimaadaan. Haddii aan usoo gudugalo marka qaladka waxa uu yahay shaybaarada Soomaaliya qaladaadka ugu weyn oo ka dhaco waxaa ka mid ah qof waxaad arkaysaa leeyahay uur ayaad leedahay oo markii meelo kale oo la geeyay uurkii aan lagu arkaynin. Qof dumar ayaa isbitaal tagayso marka isbitaalka tagto waxaa arkaysaa qof inuu dhaho shaybaarkii uur ayaad leedahay. Uurkii haddii isbitaal kale ay tagto ama xarun kale caafimaad ay tagtana gabadhii waxaa laga yaabaa inaysan isku arkin uurkii oo positive aysan noqonin. Sida caadiga ah markii la joogo cilmiga caafimaadka waxaa muhiim ah horta qofka in naftiisa laga taxadaro gaar ahaan shaybaarka marka la joogo waxaa la iska ilaaliyaa qaladaadka dhaco yacni ka yimaado qofka procedure-ka qabanayo ama operator-ka waxa loo yaqaano way yaqaanaan dadka laboratory technicians-ka ah ee labka aad u bartay. Lab operator ama lab technician-ka waxa ugu horeeya lagu train gareynayo waxaa weeyaan inuu marka hore qofkaas badqabkiisa ka taxadaro oo qalad yacni cudur uusan qabin oo kale inuu dhaho waa qabtaa oo qaladka asiga iska ilaaliyo. Marka markii aad yacni shaybaarista tahay kow waxaa waajib kugu ah inaad ilaaliso qofkan waxa maskaxdiisa dhow ku imaan karo haddii aad adiga result qaldan bixiso ama false positive hadaa sheegto ama false negative. Marka mar walba waxaa yacni kow ka ah qofka inaad u fiiriso maxaa ka dhalan karo haddii adiga degdeg inta waxa aad ku qabato result qaldan aad sheegto maxaa imaan karo. Aniga marka waxaan jeclahay mar walbana yacni qodobkan waa qodob aan kusoo dhex darayo. Dabcan ardayda markaan labka u train gareynayo waxaan dhihi jiray adinka waqti ha idinka lumo intii result qaldan aad sheegi lahaydeen. Adinka waqti ha idinka lumo intii qofka cudur uusan qabin aad dhihi lahaydeen waad qabtaa. Taasaana mar walba ka wanaagsan in aad degdeg inta wax u samayso qofkii wax uusan qabin aad ka sheegto. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah example aan usoo qaadan karo pregnancy cudurka yacni bini'aadamka markuu cudur ku dhaco waaba la yaqaanaaba waxaa dhihi kartaa qofkan cudurkaasaa ku dhacay ama bacteria keenta ama virus keenta. Laakiin waxa loo yaqaano uurka ama pregnancy-ga waa waxa ugu fudud ee la baaro laakiin ugu qaladka badan. Tusaale ahaan markii
striibka yarka ama RDT-ga waxa loo yaqaano Rapid Diagnosis Test striibka lagu baaro markii aad baaritaan sameynayso markay kaadida tahay waxaa loo fiiriyaa 3 minutes markii aad baaraysid serology ama dhiig aad ka baaraysidna waxaa loo qabtaa oo loo fiiriyaa 5 minutes tusaale ahaan qof hadda shaybaar la keenay dhowaan gal ah oo wax badan aanan ku dhex jirin cilmigii caafimaadka weliba laboratory experience badan aan lahayn aqoon badan aan lahayn maxaa false positive ka dhalan kara aan fahamsanayn maxaa ka imaan kara qofkan haddaad degdeg ugu samayso aanan fahamsanayn guidelineskii iyo proceduradii laboratoryga laga qabanayo aan fahamsanayn equipmentiskii laboratoryga aan aqaanin oo wax badan aan ka ogeyn waxaan u isticmaalayo rapid test inay yihiin iyo machine inay yihiin iyo maxaa la dhahaa qalab kale inay yihiin qof aan kala garanaynin ayaa waxaa la dhahaa 3 beri 2 beri qaarkood saacado waxaa laga yaabaa in la yiraaho baaritaankan samee pregnancy waa fududahay uur waa ka bixi kartaa uurka samee Allah waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan aqoon u lahayn what is pregnancy maxaa la yiraahdaa maxaa lagu tacriifiyaa definitionska pregnancy maxaa waaye qaabkee maxaa la dhahaa hooyadu uurka markay qaado jirkeedu enzymeska iyo hormoneska ula falgalaan qofkaas inuusan aqoonin waxa intaas ka sii xeel dheer qofkaas inuusan akhrinin kambaniyasha soo saaro alaabta wax lagu baarayo ilaan alaabta wadankan wax lagu baaro anaga ma lihin shirkadaha soo saaro inuusan kala aqoonin guidelines u yaalo maxay shirkadan ku soo qortay ma 5 minutes ay ku soo qortay ma 3 minutes ay ku soo qortay ma 10 minutes ay ku soo qortay ruleski iyo guidelineski shirkadihii u yaala ama policy company-ga u degsanay markuu waxaan soo qorayay ama requirementska looga baahan yahay timer miyuu u baahan yahay waxaan miyuusan waqti u baahnayn miyuu waqti u baahan yahay waxaan qof aan intaas dhan fiirinin waxaa laga yaabaa in 2 beri inta la tuso pregnancy-ga in uu la yiraaho uur baar ama yacni wixii serology oo dhammaanteed in la fahamsiiyo la yiraaho adigaa serology noo qaabilsan noo sameey qofkaas waxaa laga yaabaa xataa weligiis dibloma laboratory inuusan qaadanin oo aqoon badan uusan u lahayn marka waxaa arkaysaa qofkii oo ku dhahayo hooyadan uur ayay leedahay sababtu waxa waaye ma uusan fiirinin pregnancy testiga inuu 5 minutes yahay inuu 3 minutes u yahay tusaale ahaan wuxuu ka baarayay kaadida ayuu urine ayuu testiga sambalkiisa ahaa sambalka urineka waxaa laga yaabaa 2 beri 2 minute ama 2 daqiiqo in ay ku qoran tahay asigiina 10 minutes ay ka gaartay ama xataa haddii aan yareyno 5 minutes kadib resultga inuu akhriyo qofkaas false positive ayuu sameeyay positive aan jirin ayuu sheegay marka ma ku baraarugsano in badan oo dhalinyaradana ka mid ah inay qaladaadkaas ka taxadaraan ama ay daraaseeyaan ama ay baaraan warqadda leafletka ah ee la socoto testiga baakadka uu ku jiro maadaama shirkadihii ay kala duwan yihiin inahaas waxaa sii dheer haddana qofka waxaa laga yaabaa in shakhsiyan uu shaqada ka bixi rabo oo uu dahsan yahay oo yacni degdeg uu ku jiro waxaa laga yaabaa meeshii 5 minutes la qaban jiray inuu inta fududeysto 3 minutes uu qabto ama 2 minutes uu qabto markaan fiirino tusaale ahaan nuuca loo yaqaano serology pregnancy test markay tahay sida caadiga ah oo qaaliban 5 minutes ayaa la qabtaa 5 daqiiqo waxaa laga yaabaa inuu qofkan degdegsan yahay uusan fahamsanayn ilaali nidaamka oo asiga bes leetiisa uu fiirinayo 5 daqiiqo waxaa laga yaabaa inuu ka hormaro marka ma wanaagsano mar walbo in uu degdeg wax ku xukmiyo mar walba waxaa muhiim ah inaad waqti adiga kaalumo intii aad result qaldan dhiibi lahayd intaas ayaan maanta kusoo koobayaa wax badan waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala pregnancy iyo wixii la xiriira dhammaan ma ahan waxaan yarkaan aniga aan sheegay laakiin qalad jiro iyo qaladaadka badanaa isbitaalada ka dhaco baan rabay inaan baraarujiyo inaas ayaan kusoo koobayaa fadlan ha iloobin inaad follow ina soo dhahdo haddii aad naga daawanayso barta facebooka haddii aad youtube inaga daawanaysana waxaan kaa codsanaynaa inaad like inoo dhahdo subscribe inoo dhahdo adiga ayaan dhaqaajin karo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu